assalaamu calaykum saaxiibayaal halkani waxaan idinkugu soo gudbinayaa xigmado xula oo ku saabsan aamuska iyo hadalyarida waana qaybtii labaad oon idinkugu soo gudbinayo xigmado ku saabsan aamusnaanta haddaba ka bogasho habboon mararka qaar waxaynu u baahannahay inaynu aamusno in badan si aynu u meerno wasaqda hadalka dadku ma gartaan macaanka aamusnaanta in badan maxaa yeelay markay duruuftu kugu qasbayso inaad aamusto waxayba moodayaan inaadanba jeclayn iyaga aamusnaantu waa saaxiibka keliya aanan weligiisa ku qiyaamaynin afkaaga u adeegso laba shay waana aamusnaanta iyo dhoolacaddaynta maxaa yeelay dhoolacaddaynta waxay xal u tahay dhibaatooyinka halka aamusnaantuna ay tahay doontii looga gudbi lahaa mushkiladaha haddii uu aadanuhu rabitaankiisa aamusnaantu ay u ahaan lahayd sida ay hadalka u rabaan oo kale caalamku wuxuu ahaan lahaa meel aad u qurxoon waxaan helay in aamusnaantaydu ay tahay mid aan ka taajiro kadibna waan joogteeyey haddii aanan aamusnaantayda faa'iide ka helinna ma ihi mid ku khasaara aamusnaantuna wax kale ma aha ee waa miday ku taajiraan raggu kan ku taajirana wuxuu ka sara marayaa mid kastoo taajira haddii uu hadalku ka samaysan yahay qalin aamusnaantuna waxay ka samaysan tahay dahab aamusnaantu waxay daawo u tahay carada iyo xanaaqa xilliyada qaar waxaa laga yaabaa in aamusnaantu ay kugu reebto raadad uusan awoodin inuu hadalku kugu reebo waxaan go'aansaday inaan aamuso welibana aamusnaan ay ku dheehan tahay xigmad balse ogow qof kasta ma awoodo aamusnaan xigmadaysan aamusnaantu waxay u baahan tahay inaad hibo weyn u lahaato ee ma ahan wax iska sahlan barashadeedu waxaa baaqi ahaanaya aamusnaanta oo waxay noqonaysaa jawaab midda ugu fiican marka ay meeshu ka maqan tahay falcelinta aamusnaantaydu micnaheedu ma ahan inaan iska jaahilsiinayo waxa agtayda ka socda balse mararka qaar waxa agagaarkayga ka socda ayaanan mudnayn hadal mararka qaar waynu aamusnaa maxaa yeelay waxaynu ognahay in hadalkeenna uusan waxba beddelaynin sidaa awgeeda waxaynu ku qurxoonnahay aamusnaanta haweenay midda u quruxda badan waa midda hadalkeeda uu gaaban yahay aamusnaanteeduna ay dheer tahay haweenay midda u wanaagsanna waa midda joogtaysa samirka dadka kalena ka farxisa haweenay midda ugu doqonsanna waa midda wejigeeda qurxisa ficilladeeduna ay xun yihiin haddii aad dhaawacdo shakhsi ama qofkaasina ay aamusnaantiisu dheeraato ogow inuu qofkaasi ku ciqaabayo ciqaab ka adag hadalka waxaa jira hadal aan wax ku fadhin oo aanan wax micno ah lahayn waxaa kaloo jirta aamusnaan micno ballaaran ku fadhisa oo wax kasta laga fahmayo haddii hadalka uusan waxba ka beddelaynin xaqiiqada markaasi taagan markaasi waxaa ka qurxoon hadalka aamusnaanta oona ka jilicsan go'aannada qaar oo laga aamusaa ma ahan daciiftinimo ee waa xigmad aysan aqoon dadka qaar waxaan kaaga digayaa inaad aamusnaantu moodid hilmaan maxaa yeelay dhulkuba wuu aamusan yahay waxaana gudihiisa ahaaday kun burkaano mararka qaar midka aamusan wuxuu noqonayaa mid u saaxiiba hadaldheeri balse dadku waxaa degaya aamusnaantiisa mararka qaar waxaa laga maarmaana inaynu daa'inno aamusnaanta si ay inoo maqlaan kuwa kale maxaa yeelay aamusnaantu waa fan weyn oo ka mid a funuunta hadalka aamusnaantu ma ahan mid maran ee waxaa ka buuxa jawaabo waxaan gartay macaanka aamusnaanta kuwa hadlayana maysan garan qaraarka uu leeyahay hadalku sidaa awgeeda waan aamusay dadkoo hadlaya haddii ay dadku ku faanaan quruxda hadalkooda adigu waxaad ku faantaa quruxda aamusnaantaada waxyaabaha ugu adag nolosha waxaa ka mid a in aamusnaantu aynu ku burburino kelimado kadibna kelimadihii iyo aamusnaantii aynu isku burburino kelimad kasta ama hadal kasta wuxuu leeyahay raadraac sidoo kale aamusnaan kastana waxay leedahay raadraac waxaa jirta aamusnaan cajiiba suurtagalna aysan inoo ahayn inaynu soo muujinno si kastaynu u xanuunsanayno ugu dambayn walaalayaal halkaasi ay inoogu egyihiin xigmadaheennii labada qayb ka koobnaa ee aamusnaanta ku saabsanaa waad ku mahadsantihiin qaabka qurxoon aad ii dhegaysateen waa walaalkiina yaasir mukhtaar oo alla idinkaga baryaya inay dushiinnu ahaato naxariista rabbi subxaanahu wa tacaala idiinna rajaynaya guusha labada daarood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh